gabdhaha roonaan gabadha kale iyana xijaabka cas wadataha magacaygu waa Sahra Maxamed Fariid mudana madaxweyne waxaan ku weydiinayaa gobolka Sool iyo Sanaag iyo Cayn waxay ka tirsan yihiin wadanka Soomaaliya international community waxay ku qoran yihiin inay yihiin disputed area oo isku haystaan laba gobol أنا ما قرنا يا دولة دنا ما وحي آمن سنتين إنه disputed هدا يهين وملا يسقى هستان لبد دولة دود وحي يسقى هستان ولا بقبل أو ودن كيئة مركز سيلو وأقون سنها إنه يهين disputed area سؤال شمشة كتير إن ضد كاس دور الشدودي system كأي هوشود وقيب سنتين وسيستم عن لي عبنا هاي سي حقوق دودي وحل الرعية سومالي لاند هدنا دور الشدودي سياسيين تودي وحل الرعية بوتلاند marka say isu qaban kartaa maxay u noqon waayeen sida dadka Somaliland halkan loogu dooranayo ama meel kale ama maadaama Puntland leedahay laba magaalo ay leedahay way ay u weygeelan waayeen reer Sool iyo Sanaag ay meel iyaga lagu soo doorto assalaamu calaykum su'aasha rooda ee ka hadashay Sool iyo Sanaag iyo electionkeeda roodo su'aashaada waa adag tahay kama jawaabi kar haleegow بسنا والسلام يا مقعي قوي حلي هذا محمد عبد الفارح لويان وحن كترسنا يا أبو أنا ذكرنا الصوماليات وحاويدين يا مدحوينها حالته أنت هاي قفي عض أنا قوي حنا حضرتك كم ده هاي تاجر سنة وهاي رليار أنا هاي بهالشيء هدي لو يدرسات ضد بدن أو أنا قان كم ده هاي أو كم ده بحض فنك أما ورياس الصوماليات وأنا سكوبها هاي sanadka dadka ku tala jira doorashada in qof iyo cod noqoto sanadkana ay ka qayb galaan qoliyaha sharaxaya ayaan ku tala jirnay waayo bulshadu wayna taqaanaa abwaaniinta Soomaaliyeedna inta badan waxay ka shaqeeyaan wadaniyada iyo horumarka iyo dawladnimada maadaama aanu arinta ku fakireynay bahasha haday noqotay doorasho dadban mudana madaxweyne maxaa kaaga qorshaysan bahda fanka anagu waxaan codsanaynaa haddaan bahda fanka nahay sida haweenka Soomaaliyeed ay qoondada loogu qoondeeyay in bahda fanka ay qoonda helaan waayo door bay leeyihiin marka intaas su'aashaas ayaan weydiin lahaa madaxweynaha waa maasantahay maxamed cabdi faarax wuxuu yiri dhalinyaraan ahay marka hadduu dhalinyar yahay maxamed cabdi faaraxna dhalinyaraan ahay bahda fanka qaybta ama doorka ku leeyihiin doorashada ma aha kaliya cod waxa weeye dadka inay maxaan ku yiraahdaa wacyi geliyaan oo suugaan wadaniyad badan ku jirto iyo dal jaceyl iyo in musuqmaasuqa oo wanaagsaneyn dawlad wanaag intaas oo dhan waxa la rabaa inay heeso iyo geeraaro iyo gabayo ka tiriyaan marka doorkiina waa kaas horta gabadha dharka cas wadata magacaygu waa Xafsa Maxamed Xuseen madaxweynaha waxaan weydiinayaa madaxweyne xilligii doorashadii abaabulkeeda ahayd waxaad xoog saaraysay inay helaan qoondada haweenka inta loogu talagalay fiiladan aan joognay quruxda badan ee aad maamusho oo fiila Soomaaliya ma jiro hal gabar oo agaasimo ka ah ama maamusha waxa dhinacyada taagan oo fiilada dhan jooga waa rag haddii aad lacala soo noqotid maxaad kaaga qorshaysan gabdhaha misaanay wiilasha u joogayaan oo gabdhaha banaanka la geenaya waxay tahay cadaawada adiga gabdhaha inta dhaxaysa madaxweyne waa maasantahay xafsa qoondada haweenka gabdhaha fiila Soomaaliya waa su'aal wanaagsan xafsa waxaan ku sheegayaa waxa ka noqotay halkan gabar aamina la yiraahdo aamina sicid la yiraahdo waxay noqotay agaasimihii guud ee madaxtooyada ee ugu horeeyay ee gabar ah marka taas waxay ku sheegaysaa inaan gabdhaha jecelahay ogow magacaygu waa maxamed cali cusmaan su'aasha koobaad golaha shacabku wuxuu ansixiyay 13 kursi in gobolka banaadir in loogu daro 13 kursi aqalka sare dastuurkuna wuxuu qabaa aqalka sare xubnihiisu inay ka kooban yihiin 54 waa maxay mowqifka madaxweynaha ee arinta ku aadan su'aasha kale waxay tahay fargelin shisheeye ayaa madaxweynuhu hadda ka hadlay
khudbadiisii horena way ku jirtay dowladda Kenya oo ciidamadeedu ay waddanka ku jiraan oo maanta aan xataa ay barnaamijyo ka jireen gobolka Gedo dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenyana aysan xiriirkoodu hadda wanaagsanayn sida dabcan aniga aan u arko saamaynta ay doorashada soo socota ku yeelan karaysaa siday noqonaysaa su-aasha ugu dambaysa adoo raalliga socoto madaxweyne qof iyo cod inay waddanka ka dhacdo ayaad u soo ololeysay way dhici weyday qof iyo doorasho dadban ayaa lagu noqday doorashada soo socota anigoo dabcan guul kuu rajaynaya haddii aad lumiso marka la gaaro 2024 ama 25 haddii ay qof iyo cod noqoto doorashadu ma u soo tartamaysaa adoo mahadsan waayahay saddexdaasaan ka jawaabana insha allah madaxweynahan siinaya maxamed cusmaan gobolka banaadir iyo qoondada aqalka 13 ee aqalka sare ah arrintan xaqiiqatan waa ogtihiin anigaa bilaabay inaan codsado baarlamaanka aan ka codsado in matalaad loo sameeyo gobolka banaadir iyaguna waa ajiibeen codsigayga oo waa aqbaleen waxay ka soo saareen qaraar ay ku aqbalayaan in loo ogolaado gobolka banaadir 13 cod 13 xubin oo aqalka sare in loo ogolaado arrintaasi waa laba qaybood qayb sharciyad iyo dastuur ah iyo qayb siyaasadeed qaybta siyaasadeed waa dhamaatay oo waxa ugu dambeysay 2 usbuuc ka hor yaan waxaan isugu yeeray xafiiska isugu yeeray gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka banaadir gudoonka labada aqalka sare cabdi xaashi iyo golaha shacabka gudoomiyaha maxamed mursal oo aan u sheegay in ay soo dhaaftay hawshan siyaasad ay soo dhaaftay oo baarlamaankuna ay aqbaleen siyaasad ahaana la isku raacay marka wixii markaan ka dambeeya inay galaan farsamo siday u waafajin lahayn dastuurka marka su'aashaas iyaga weydii iyaga ku maqan tahay arrinta dowladda Kenya doorashadan ma ku yeelan doontaa saameyn waa su'aal da'weyn waqtigeeda sugeynaa insha Allah waa mahadsantihiin aad u mahadsan yahay madaxweyne maxamed cabdullaahi markaan waxaan isku dayay inaan su'aalaha dadka naga maqan ee banaanka jooga ee daawanaya inaan mid ka mid ah soo qaado madaxweynaha weydiiyo waxa aan soo qaadayaa Dictoresa Caaliya Mursal oo joogta dalka Jarmalka waxay leedahay madaxweynaha khudbadiisii hore waxa ku jiray erayo ay ka mid ahaayeen waxaan doonayaa inaan isku hayo dalka muxuu la jeedaa ma inta doorashada ka dhiman baa ma kadib baa inaan dalka isku hayso muxuu la jeedaa bay leedahay Jarmalka joogtaa su'aashaasaan jeclaan u soo dhaxdaro insha Allah Caaliya Mursal oo joogta dalka Jarmalka waa su'aal wanaagsan Caaliya madaxweynuhu shaqadiisa loo dhaariyay hawsha iyo shaqada loo dhaariyay madaxweynuhu waxa ugu horeysa inuu ilaaliyo midnimada Soomaaliya iyo qaranimada Soomaaliya inuu ilaaliyo ama ha ahaato xilli doorasho ama yeesan ahaanin bacdama hadda inaga soo gashay xilli doorasho oo ah xilli aad iyo aad u adag kuma wasi jirtaba waa ka adag tahayba inaan dalka isku sii hayno marka waxaan ku sheegayaa dastuuriyan madaxweynuhu shaqadiisu waxa weeye dalka iyo dadka Soomaaliyeed midnimadooda iyo wadajirkooda inuu adkeeyo waa mahadsantahay oo soo laabanayna arrimaha bulshada waxaan jeclahay inaan marka safkan ba aad iyo aad dhowr jeer ka boodbooday marka wiilashan siinaya insha Allah ninka geeska xiga raalleho ku soo laabanaya insha Allah oo kugu xijinaya insha Allah oo kugu soo xijinaya ninkaas insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم مقعيق ورسامي محمد علي محمد علي والسلام يا مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية يو دمان مرتي الشرفك
mudane madaxweyne waxaan jeclahay inaan wax kaa weydiiyo qoondadana lagu wareeriyey ee haweenka raalli ahaada gabdhaha aniga waxaan ka mid ahay dadka aad ugu hanweynaa doorasho qof iyo cod ah laakiin maysan dhicin adiga waxaa tiri waan tanaasulay laakiin xoogaa in laga adkaadaan aragnaa waxaan jecleen doorasho qof iyo cod ah in waddankan ay ka dhacdo waa laga soo gudbay dadka laga yaabo inuu hanka ku jiro ama u hanqaltaagaya siyaasadda inay ka mid noqdaan haddana waxaa la aaday doorasho dadban oo runtii danayna aanan ka turjumaynin beelaha qaar haddii aan baasha si qabiil u hadlo kuraastooda hadda dumaraa ku fadhiya baarlamaanka ayaan dhaweyd waxay dhaheen qoondada dumarka sidooday ahaanaysaa taasoo annaga aan u aragno cadaalad darro gabdhaha waxay mudan yihiin 50% iyo ka badan maxaa diidaya inay gabdhaha si xor ah u tartamaan ay ragga ula tartamaan 70% xataa mudan yihiin mudan madaxweyne muxuu yahay mowqifkaaga ku aadan qoondada haweenka iyo kuraasta hadda dumarka ku fadhiyaan waa maasantahay ninka odayga ha isaga u dhib waa maasantahay بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي ومحمد عثمان شرع مدحوينه وحويدينا يا سؤال كوبان مدن مدحوينه محمد عثمان شرع dalka soo hogaaminaysay anaguna taageerayaasha adoon ahayn welina waana si ahaan doonaa inta kadib anagu madaxweyne waxaan dhalay waqti qaran Soomaaliyeed jiro dalkeenu maanta wuxuu marayaa marxalad xasaasiya dalkeenu waxa waaye maanta waxaad moodaa inay jiraan awooda isdhinac isu dheelatiran annaguna waxaan awlaadeena macruurtana ugu sheekayna dalkeena in hal meel laga hago aniguna waxaan ay dadka jecel mar walba in dalka hal meel laga hago goormuu dalku noqon doonaa in hal meel laga hago oo maaragtay awoodaha isdheelitiran qaab kaleeto oo county ah ama awoodo yaryar oo dalka hal meel laga xukumo goormuu maaragtay maxaa kaaga qorshaysan sidaasaan su-aashaas ku weydiinaya ku celi weli hal mar ku celi su-aasha waxa waaye dalku wuxuu marayaa marxalad xasaasiya awoodo isdhinac maaragtay isu dheelitiran baa waddanka ka jira adiguna aad ugu sarreyso aad tahay maaragtay maynka ugu sarreeyey marka su-aashu dulucdeeda waxa weeye maxaa kaaga qorshaysan dalka in hal meel laga wada xukumo oo mustaqbalka soo socda adigu maaragtay maxaa kaaga qorshaysan koobanta su-aasha waaya xagga gadaale ninka hadda istaagay jaakadda greyga wata ha adigoo ku bilaabaya magacaaga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته codkaaga uu yar yahay microphone kor u qaad السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magacaygu waxa weeye Dr. Cabdijabaar Dhagjar Cabdijabaar waxaan ahay wiil reer Soomaaliland gaar ahaan ka yimid magaalada Boorama madaxweyne waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo heshiiska aad gaadheen adiga iyo maamul goboleedyadu deegaamadan ka soo jeednay Soomaaliland ma laga tala geliyay su-aasha labaadeen rabay inaan ku weydiiyo madaxweyne waxa weeye Soomaaliland xaalkeega waad ogtahay bari ka maalin haddii Soomaaliland ayaba soo laaban lahaydba yacni dadka maanta kuraasta ku fadhiya ee adigu ugu horeyso ma tanaasul ma samaynaysaa kuraasta waddanka ugu sarreeya inaad siisaan oo xaal uga dhigtaan waxa weeye mataqaanaa taa diyaar ma u tihiin mid saddexaad baan jeclaan lahaa haddaad igu darayso mudane madaxweyne doorasho dadban waxa weeye dee waad isku ogtahay carqaladaha ay leedahay annagana waxaan hor jooga haddaan reer Soomaaliland nahay dad waxa weeye shirkiga embagaati ilaa hadda maanta fadhiya sida u eegtayna waxa weeye rag dee waxa weeye intay kuraasta fadhiyeen xoogaa jeebkana buuxsaday ta soo socota rajadeeda waan aragnaayo ninkuu ka shilin badan yahay ayaa noo muuqata inuu soo baxayo dadka jeebadaha igu maran yahay haddana han kale maxaad madaxweyne u sheegi lahaa intaas ku soo dhaweeyay aad ma santahay saddexdan su'aal aan ka jawaabayna insha Allah madaxweynaha siinaya waxaan umaleeyaa warsamo ugu horeeya بسم الله الرحمن الرحيم warsame wuxuu yiri qoondada dumarka hadda jira ha loo badiyo saan u fahmay boqolkiiba 30 weeye wuxuu leeyahay boqolkiiba 50 ha laga dhigo laakiin tartan ha la geliyo
boqol iyo soddon maaha hadda waa boqolkiiba 24 boqol iyo 24taas kuma imaan baryo waxay ku yimaadeen doorashay ku yimaadeen haddii ilaahay u badiyana insha allah waxaan rajaynaynaa inay intaas ka bataan hadduu ilaah yidhaahdo laakiin waxa weeye boqolkiiba 30 waa target weeye marka hadda targetkaas ma gaarin laakiin waxaan rajaynaynaa hadduu ilaah yidhaahdo dumarka qoondadooda inay gaarto boqolkiiba 30 iyo in ka badan tartankuna waa furan yahay tartan dumar loo xiray ma jiro tartanku waa furan yahay way ficnaan lahayd xaqiiqatan in la og yahay xaqiiqatan inta dumar soo noqonaysa way ficnaan lahayd laakiin haddii la yidhi waa tartan anu kolleyba waa jeclaan lahaa inaan caawiyo gabdhaha hadduu ilaah yidhaahdo maxamed shire wuxuu yidhi dalka mala gaaraya hal meel in laga xukumo dalkan muddo ayuu wuxuu ku jiray runtii xaalado adag aad iyo aad u dhib badan ayuu ku jiray dhibaatooyin badan ayuu ka soo kabanayay dadkii waa kala tageen waa la kala irdhoobay hadda yaa bilaabanaysaa in aan ku heshiinay federalismka marka inaan xoojino federalismka qaababkii la isugu imaan lahaa oo awoodahan loo qaybsan lahaa khayraadkan loo qaybsan lahaa hadduu ilaah yidhaahdo waana qayb ka mid ah dhamaystirka dastuurka hadduu ilaah yidhaahdo waa gaaraynaa wakti isqabqabsi uusan jirin waxaani federalismka waa wax nagu cusub qof walba sidee la tahay yuu u fasirtay iyo maalintaas uu joogo laakiin waxaa la heli doonaa hadduu ilaah yidhaahdo fasiraad wanaagsan oo ka muuqda dastuurka iyo haddii fasiraaddaas ay gasho shaki ay gasho meel ka sarraysa oo la aado oo ah maxkamadda dastuuriga oo kala saarta dadka hadduu ilaah yidhaahdo laakiin meesha aan hadda taagannahay way ficnaan lahayd inaan kasii fiicannahay oo meel kasii fiican aan joogno haddana naftigeeda dalku waa socdaa hore u socdaa maalin walba meel yaan joognaa meel baan taagannahay waana horena waa u socon doona hadduu ilaah yidhaahdo arrinta cabdi jaabir uu yidhi maxamed shire waa sheegay cabdi jaabir arrinta ah wada hadalka soomaaliya somalilan yuu ku soo celiyey iyo doorkay ku lahaan karto doorashadan su-aashaasi kolleyba dee uma baahna fasiraad uma baahna su-aashaas jawaab uma baahna laakiin waxaan kaaga jawaabayaa tan gaarka ah oo aad tiri wada hadalka iyo wada jirka iyo midnimada soomaaliyeed kursigaaga ma ku bedelan lahayd haa waa ku bedelan lahaa xaqiiqatanna horaan usoo jeediyeyba wax cusub ma aha hore yaan usoo jeediyey haddana diyaar yaan la ah hadduu ilaah yidhaahdo waa mahadsanta waa yahay gabdhaha wax ka siinayaa maryan habeen wanaagsan madaxweyne waa ku salaamay magacayga waa maryan axmed geedi maxadka raas waan salaamayaa oo barnaamijkan soo abaabulay madaxweynaha waxaan u wadaa 3 su'aalood oo kala duwan midda koowaad maadaama aad ka shaqaysay xilliga aad xilka haysay musuqmaasuqa aad la dagaashay dowladnimada wax badan aad ka qabatay sida ciidamada xuquuqdooda oo helaan muddada maaragtay 25 bisha midda kale oo aad aan kugu amaanayno waxay ka mid tahay xuquuqda sida kale maaragtay shaqaalaha rayidka dowladda oo isla xuquuqdooda helaan ma laga yaabaa haddii aad xilka banaysid madaxweyne annagoo kuu rajaynayna inaad soo noqotid waddanka muxuu geli doonaa horta taas waa inay ummadda soomaaliya isweydiiso midda ku xigto maadaama waxyaalahaasoo dhan aad ku guulaysatay maxkamadda dastuuriga oo kuu dhiman ma dhammaystiraysaa inta aan doorashada la aadin intaasaa madaxweynaha ayaan dhihi lahaa habeen wanaagsan waa yahay ninka gadaalaha bismillaah magacaygu waa maxamed xasan waa salaamayaa madaxweynaha su-aalahan horta qabay badidoodii waa la soo jeediyey laakiin su-aal aada iigu taagan oo kalea jirtay maadaama la isla oggolaaday doorasho dadban dhibaatooyinka ku hareeraysanna aan ognahay inay badan yihiin
qorshayaasha doorashada dadbanna ay qayb ka yihiin 101 xubnood iyo odayaashii dhaqanka meeshaan u socdaa waa odayaasha dhaqanka oo aan ognahay doorashadii hore ee dadbanayd inay caqabado kala kulantay al-shabaab markaad doodayseen idinkii maamul goboleedyadu arrintaa meesha ma ku darsateen in doorashadan dadbane la aadayaa ay khatar kale ku sii ahaanayso odayaal mise taa la ismaba weydiin intaasaan idin weydiin aad u mahadsan tahay safkan ugu horeeya ninka hadda gacanta kor taagan jaakada madow suudka madow wata iyo tayga muraayadaha wata ha waa adiga magacaaga adoo ku bilaabay بسم الله مقاعد محمود أحمد يوسف codkoo yiri مقاعد محمود أحمد يوسف مدحونا جمهورية الفدرالية الصومالية محمد عبد الله فرماتشو waxaan uga mahadcelinaynaa inta uu xilka joogay sida uu dhalinyarada boqolkiiba 70 ku dhow inuu masabyo fara badan uu ka siiyay xukuumadda dhalinyaradaas oo ah sida xeraalyaha guud ee gobolka Banaadir agaasima ku-xigeenka madaxtooyada marka madaxweyne aad baad u mahadsantahay taas su-aashii hadda soo dhaadhaco madaxweyne gobolladan ka soo jeedno ee waqooyiga Soomaaliya doorashadooda waxay ka dhici doontaa gobolka Banaadir madaxweyne dhalinyarada boqolkiiba 70 ah waxa hortaagan caqabado badan oo aan la soo koobi karin marka madaxweyne ma noo garanti gareyn karaysaa mas'uuliyiinta magacaaban ama kuraasta wasiirnimada ku fadhiya inaanay nagula tartamin hantida ummadda Soomaaliyeed iyo masabka ummadda Soomaaliyeed aad baan kaga mahadcelinayaa madaxweyne aad u mahadsan tahay madaxweynaha Senior saddexda su'aalood uu ka jawaabo oo soo laaban doona insha Allah Maryam waxay tiri waqtiga hadda haray ma laga gaarsiin karaa in maxkamadda dastuuriga la magacaabo qorshaha waa noogu jirtay waxaa haray hadda waa 3 bilood haddii labada aqal golaha shacabka iyo aqalka sare ay arrintan xoog saaraan waxaan aaminaa inay ka dhabeeyaan laakiin qorshuhu waa ku jira arrinta see loo kala maareynaya doorashada dadban iyo shabaab waa xaqiiqo weeye shabaab dee bulshaday ka tirsan yihiin oo meel walba isaga dhex jiraan sababta aan ugu darnay ururada bulshada yaa qayb ka ah iyada naftigeeda vettingka sameynaya waana ka dadaalaynaa insha Allah waana ku dadaalaynaa in dadka ergooyinka ka midka ah ay noqdaan dad bulshadu ay taqaano ayna ku taqaano inay yihiin dad hufan oo Soomaalinimadooda ay fiican tahay oo aanan xiriir la lahayn sharwadayaasha Maxamuud Axmed Yuusuf doorashada gobolada waqooyi ee ka dhacaya magaalada Muqdisho Maxamuud doorashadu waa furan tahay doorashada sideedaba waa nasiib iyo dadaal iyo farsamo marka intaas hadaa la timaado waxaa laga yaabaa inaad xildhibaan soo noqoto hadduu Ilaahay yiraahdo waa mahadsantahay aad u mahadsan yahay madaxweyne maxamed cabdullaahi markaana waxaan u laabanayaa xagga dadka internetka naga daawanaya adduunka nagala socdo su-aalahayna weydiinayaan mid ka mid aan soo qaadi doonaa insha Allah su-aasha ugu horeysa waxaan ka soo qaadayaa cabdirasaaq xaashi geedi oo jooga magaalada London waxa uu yiri madaxweynaha waxaan weydiinayaa odayaasha la yiri waxay soo xulayaan ergada 101 ka kooban doorashada ma waxay ka imaanayaan 335 oday miyay ka imaanayaan hore u jirtay xilligii dawladdii hore mise hab kala lagu soo soocaya ayuu leeyahay su-aashaas waxaa la yiraahdaa cabdirasaaq xaashi geedi oo jooga London odayaalkii la yiri waxay soo xulayaan ergada 101 doorashada codbixinta baarlamaanka bixin doona ma waxay ka imaanayaan odayadii hore 135 ka ahaa mise waa kuwa cusub oo la xuli doona iyaga macnaha ergadana ma la xulayaa odayaalkana ma la xulayaa su-aashan waxaan jeclahay madaxweynaha inuu ka jawaabo dabadeedna waan isin doonaa insha Allah jawaabta cabdirasaaq waxa weeye ergada xulitaankeedu
sidaan sheegnay heshiiskan ku gaarnay waxaa qayb ka ah odayaasha dhaqanka guud ahaan iyo civil society-ga iyo maxaa la yidhaahdaa dowlad goboleedka oo hadhow diiwaan gelin doona ama qayb ka ah 135 oday khasbiyan waxaa laga yaabaa qaarkood inay waa hor dhinteen yaa laga yaabaa aysan hadda ku jirin meesha waxaa laga yaabaa inay si kale u xanuunsan yihiin ama aysan joogin yaa laga yaabaa laakiin waxaan sheegi karaa aniga oo keliya in iyaguna ay ku jiraan kuwa kalena lagu dari karo saasaan isleeyahay arrintaasna runtii waa arrin ay dadka dowlad goboleedyada iyo deegaanada ay joogaan ay leeyihiin go-aankeeda aada mahadsan tahay waxaan idinku soo celinayaa su-aalihii aan annagoo soo gabagabaynaa insha allah ninka xagga koofiyadda ruuxaya waxaan maleyna wejigiisa garanaya yuusuf waa dhallinyarada isboortiga wax badan buu gacanta taagay raalli ahaada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدام مدحونا ku salaamay iyo akhyaarta ka soo qayb gashay waxaan ku weydiinayaa laba su'aalood oo muhiim ah maadaama shacabka Soomaaliyeed ay rabeen doorasho cod iyo qof in la qabto oo aad dadaashay ay ku garabsiin waayeen inay barnaamij ku soo baxaan ay muujiyaan shucuurtooda inay rabaan doorasho cod iyo qof weli fursada jirto dadka wax dooranaya weli waa shacab waxaan jeclaan lahaa dadkaas in la dhiirigeliyo oo musuqmaasuqa sidii looga dareeri lahaa ma laga yaabaa inaad samaysid road map oo 2024 dowladda ay dhalan doonto ee kaga shaqeyso doorasho cod waddanka in la gaarsiiyo oo isbaarada oo maamulada waddanka ku haya loo gudbo oo isa dhicin madaxweynaha hadda soo laabtay dadka madaxweyne kale imaado aysan mar labaad ee u hor istaagin in hadda road map la soo sameeyo oo guddiga doorashooyinka xalimeeray inay sii shaqeeyaan oo 2004 dadka u diyaar garooba in doorasho cod qof la gaaro su'aasha labaad ku weydiinayo waxa waaye maadaama baarlamaanka Soomaaliya la rabo inay sharciga iyo dastuurka ilaaliyaan haddana inay xukuumadda marka la galaan dowladdii hore wasaare qaar kulligood badanaa waxay ahaayeen xildhibaano ma laga yaabaa dowladda cusub in dadka shacabka fursad la siiyo oo dad aan xildhibaano ahayn laga dhigo golaha wasiirada waa maasantay safkan baan soo waacayaa ninka odayga ha بسم الله dhalinyaro wey laakiin ومهد علينا يا مدحوينها جمهورية مدرب محمد عبد الله فرماجو sidoo kale waxaan jeclahay inaan mahad celiyo macadka raas oo runtii isaguna soo howlay inuu munaasabadan noo maaragtay suura geliyo magacaaga magacayga waxa la yiraahdaa Cabdiwali Maxamed Axmed bulshada rayidka ka socda mawduucan waxaan is leeyahay waa mawduuc runtii mudan kuna soo aaday waqti muhiim ah mudane madaxweyne waxaan dhageysanay hordhici aad samaysay annagoon siyaasadda runtii la soconay annaga laftarkeeno marxaladii ay soo martay bulshada maadaama aan ka tirsanahay runtii waxaan rabaa inaan horta waa kugu ammaanayaa inaad tahay madaxweyne aan sharciga ka baqin runtii waxaa la soo maray marxalado badan waddanka 4 sano oo wax dhiman oo hadda aad joogtay waana u baahan yihiin ummadda Soomaaliyeed madaxweyne geesiya oo markii ay joogto arrimaha dibadda ama arrimaha maaragtay saameynaya masiirka ummadda madaxweyne go'aana adag ka qaadan kara runtii oo aan aysan cabsi gelinaynin horta waa kugu ammaanaya ha iska jireen waxyaabo loo kala oo laga yaabo in sida loo maareeyay si kale oo ka habooneed ay jiri karto midda ah doorasho qof iyo coda ayaa dadku inta badan ay rabeen oo sida hadda aad ka dareemayso reactionka dadka dhalinyarada u badan oo meesha jooga annaguna sidaasaan qabnay laakiin xadiis nabi ayaa wuxuu ahaa يعني لبا dhibaato midii roon ayaa la qaataa si aan fasaad kale oo aan ugu dhicin runtii ayaduna waa nooc kale oo geesinimada kamid ah haday ku muuqatay dalku inuu kala tagayo ama political anarka cusub uu galayo runtii ayaduna waa ku amaanan tahay midda dhalinyarada runtii waa la qaba dhalinyarada dowladda dhalinyarada inay tahay waan jeclaan lahaa rag badan oo hadda meesha jooga haday ka maqnaan lahaayeen waa amaani lahayo hadda Cabdinuur iyo uu kamid yahay oo agaasinka madaxtooyada iyo Cabdirashiid iyo tiim badan mudane madaxweyne waxaan jeclaan lahaa laba su'aalood oo midna kaftan ay tahay midna ay tahay su'aal doorashada ku saabsan midda koobaad oo kaftanka aan soo hormarsaday mudane madaxweyne dhuusa mareeb
2 iyo 3 ilaa midii xamar hadda u dambeysay iyo ka horba doorasho qof iyo cod ahaad ku dheganayd laakiin aakhirkii u dambeysay xoogaa waxaad u baqday in si aad xafladii sagootinta madaxweynayaasha dowlad goboleedka habeenkii dhoweedba aad u samaysay inaad istiri war hadday nimankii isla safteen odaynibaa lagaaga baahan yahay maaragtay ma laga yaabo mudane madaxweyne in habeenkaas saxiixaas markaad qaadanaysay aad u arkaysay oo aad baqdo islahayd war armayba dadka dhameba taageersan yihiin doorasho dadbanoo nimankaani muxuu ahaa aanay dadku kugu aragtay yahayn oo haddaad munaasabadan maanta aad dhacaawo ka qayb gelayso aad ka qayb geli lahayd ka hor arrintaas ay ku muuqan lahayd inaad geesinimo ka qaadi lahayd oo aad u difaaci lahayd horta su-aashaas waa su-aal kaftara midda labaad waxa waaye ummadda soomaaliyeed waxay waaye arag mudane madaxweyne ku tahay 2016 wixii waddanka ka dhacay ceebtii doorashooyinka dadban ka dhacay ayaa ummadda waaye arag ku tahay haddeerna waxaad moodaa inay wax badan wadaagaan qodobada la soo saaray marka mudane madaxweyne runtii adigoo aad ugu ammaanan isku dayga aad isku dayday in doorasho hagaagsan oo hufan oo shacbiga u dhow inay ka dhacdo dalka adigoo aad ugu ammaanan haddana qafafa darareynkii haddaad qaadatay waa ku ammaanan tahay laakiin waxaan rabaa inaan mudane madaxweyne ku weydiiyo sidee dawladdu u damaanad qaadaysaa waa ku dheeraatay walaal mudane madaxweyne sidee dawladdu u damaanad qaadaysaa in ceebtii musuqmaasuqii iyo waxyaabay waddanka ka dhacay inaanay sidii iyo si la mid ah aanay u dhicin sidee u damaanad qaadaysaa aad umahadsan tahay hal gabar baan ku darayaa gabdhaha ka mid a gabadha geeska xigta labadiina waa idin kala dooranaya middaa dhinaca xigta magacaaga adoo ku bilaabaya بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa hoodo ismaaciil qalbi waxaan ka yimid somaliland gaar ahaan hargeysa madaxweyne farmaajo aad baan u salaamayaa su-aashan weydiinayaa waxay tahay mudane madaxweyne tan iyo markii aad kursiga ugu sarreeya ee madaxtinimada ee dalka qabsatay ilaa imika oo waddanku doorasho gelayo mar kasta waxaad ku celcelisaa somaliland inaydaan kala maarmaynin idinkuna aydaan ka maarmin waddankuna aanu kala go-aynin 4 sano oo aad xafiiska joogtay somaliland wax wada hadal la maadgelin sanadkii aynu imika ku jirnay 2020 bishii 6 baad Djibouti ku kulanteen somaliland iyo Soomaaliya go'aamaha ka soo baxay ah in shirka 15 cisho kadib guddi la saaro somaliland iyo Soomaaliya dib uu Djibouti uga furmo 3 jeer uu shirkaasi dhankiina ka baaqday anigu waxaan ka mid ahaa qolooyinkii warbaahinta ee goobjooga u ahaa maxaa baaqiyay soo lama oran karo wada hadal iyo somaliland inaad wada hadashaan diyaar uma tiidin inaad markaa wada hadalku furmana doorashadu baad ku galayso waxaad islahayd un ka dhabay go'aamadaadii aad u mahadsantahay waa rooda Soomaa mise hooda weey بسم الله الرحمن الرحيم يوسف سؤال شيسا إلا سميو رود ماب oo lagu galo loo diyaariyo 2024 iyo 25 2025 waa lagu ballamay in doorashadu markay dhamaato in la qoro oo la bilaabo waliba anigu waxaan soo jeediyay in hadda la sii bilaabo qaybteeda hore la sii bilaabo guud ahaan dadka hadda joogana ay heshiis ku galaan markuu electionka dhamaadana iyada naftigeeda la sii xoojiyo marka hawshaasi waa hawl laga hadlay in loo baahan yahay road map inaan dib loo noqon wax alla wixii hadda khaldamena la saxo bacdama hadda sharciga doorashada la hayo wax alla wixii ka dhimanna loo dhammaystiro dowladda cusub wasiirada la magacaabi doono bannaanka ma ka imaan doonaan wey su-aasha kale uu weydiiyey taas waxaa weydiisaan prime ministerka in sha allah wasaaraha cusub weydiiyey su-aashaas cabdirasaaq cabdiweli bulshada rayidka ka socda ma la damaanad qaadi karaa in musuqmaasuq laga fogeeyo electionkan horaa loo yidhi soomaali musuqmaasuq waa meheradeeda marka waxaa laga rabaa abwaanada iyo dadka culummadu inay dadka ka wacyigeliyaan in musuqmaasuq uu xun yahay laaluushka uu xun yahay si looga fogaado laakiin waa inaan helno mekanism walba oo lagu yareyn karo
ama lagu tirtiri karo musuqmaasuqa hadduu ilaah yidhaahdo hooda horta aadaan ugu faraxsanahay caawa reer somaliland inay meeshan ku badan yihiin waxay ila tahay dadkii waa isdhex galay marka hadda kuwo badan waa sugaynaa inay yimaadaan insha allah waa mahadsan tahay hooda su-aasha ay weydiisay waa su-aal wanaagsan annaga miyaa ka mas-uulah in la baajiyo kulamadii aan u ballannay waxaan odhan karaa labada dhinacba annaga qaybteenna waa qirayaa waa ka gaabinay sababtaan uga gaabinana waxaan galnay election iyo buuq kalaan galnay siyaasadeed marka taasaa qayb ka ah inaan ka gaabinno laakiin mid ogaada hawshaan hadda ma bilaaban waxay bilaabatay 2 sano iyo bar ka hor iyay bilaabatay hawshaan laakiin waxay ahayd wax soo socday oo marna runtii la wada hadlayay marna wada hadalka uu joogsanayay anigu waa iga go-anta runtii waa iga go-an tahay ma aha wax siyaasad iyo election lagu galo waa ka weyn tahay waa masiir soomaali weeye waa mustaqbal soomaali weeye waa caruurteenna mustaqbalkooda wax siyaasad iyo wax election wax ka weyn weeye marka waa wax taagan qof alla qofkii mas-uulah oo damiir soomaali leh waxa weeye inuu u istaago wadajirka iyo midnimada soomaaliyeed waa mahadsantihiin safkaanan ka maqnaa muddo Shucayb بسم الله مدقعك ومحمد تهليل تهليل على إدها وعن قصة أوبح عاصمة وأرد اليرد الصومالية كشقة إذا أرماد اليرد يدي رزق وطنك سؤال شيء وحيل حير تدور الشذا 2016 وحن هولودنا ده وحن كم ده جدي خلافات كحلنت خلافات كدور الشذا واحد عادي إن كراس بدن أي برلمان صوب بين وقايف كم ده برلمان ultimate lagu dhaga 22 inay ahaayeen oo maleena wax sharci darro ku soo baxay kadibna laga foqo la yiri baarlamaankiina hore ka galay dikaaradii loo sameeyay mudane madaxweyne hadii ay dhacdo in sidaas oo kale ay dhacdo doorashadan soo socota maadaama ay u qaab ag tahay maxaa kaaga qorshaysan in dadka noocaas oo boobka ku soo baxay looga hortagi karo waxaan rabaa inaan raacsado qodob kale madaxweyne ballanta ayada ay soo xasuuso balan sloogadeen miya ballantaas waa bannaankan u malaynayaa waxaan siinayaa gabadhaas ninkaa gabadha siinaya magacaygu waa Safa Maxamed waxaan ka mid ahay ardayda jaamacadda ummadda ka dhigata saxaafadda madaxweynaha waxaan weydiin lahaa dowladdaadu way ku adag tahay la dhaqanka raallihow magaca ku celi magacaygu waa Safa Maxamed Safa Maxamed yes Safa Maxamed Safa miya yes okay magacaygu waa Safa Maxamed waxaan ka mid ahay ardayda jaamacadda ummadda ka barata kulliyadda saxaafadda madaxweynaha waxaa weydiin lahaa dowladdaadu waxay ku adag tahay la dhaqanka saxaafadda waxaana soo dhow doorashadii oo fooda nagu soo haysa maxay tahay qorshaha u degsan ee lagala dhaqmi rabo saxafiyiinta waa mahadsan tahay halka oday muraayadaha wata aad buu maaragtay dhaarna way ku jirtaa malaynaya inaan siiyo ku qasbanahay waa kaftumaya بسم الله بسم الله marka koowaad waxaan salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdullaahi farmaajo sida tanaasulka leh iyo maslaxadda soomaaliyeed oo isku haayo waxaan rabaa su-aasheeda inaan weydiiyo 3 sano iyo barka hadda lasoo dhaafay xukuumadda wax shaqaale ah oo cusub lama qoran barnaamijka sanad walbana Soomaaliya iyo guud ahaan dhalinyaro badan ka soo baxa oo jaamacadaha ay soo saaraan marka maxay tahay qorshaha xukuumadda dhowrka bil harsan shaqa abuurka dhalinyarada oo ah in beerolka dawladda ay galaan dawladda qorsheed u yahay su-aasha labaad aan xijinayo waxay tahay madaxweynaha hadda laga maqlay horta saakay baarlamaanka ayaa ansixiyay doorashadii qofka ugu horreeyay inaan naqdaan rabaa weydiiyo ah madaxweyne horta musharax ma tahay kow
maadaama dalka doorasho uu galay oo doorasho uu aaday mar la ansixiyey magaceyguna waxaa waaye waa Fahad Cali Xasan. fahad miya Fahad Cali Xasan. fahad waa mahadsan tahay madaxweynaha siinayaa su-aalaha anu ka jawaabo barnaamijkan soo gabagabeynaa insha allah waqtiga nagu dheeraada awgeed raalli ka ahaada marka labada su-aalood insha allah waa saddex tahliil ubaxa caasimadda ayaa ugu horeeya maxamed tahliil ubaxa caasimadda runtii waa dhalinyarada isxilqaantay oo bilicda magaalada iyo quruxda magaalada maalin iyo habeenba u soo jeeda oo runtii ka shaqeeya marka fadlan labada gacmood isugu geeya ninkaas shaqadiisa iyo ururkiisa shaqadaad qabato aad iyo aad ayaan runtii kaaga mahad celinaynaa oo volunteerka ah oo aad magaalada ku qurxiso waxaan rajaynayaa dhalinyarada kale inay kugu dayato hadduu ilaah yidhaahdo su-aasha uu i weydiiyey waa su-aal saxa weeye doorasho walbaba waxbaa ka soo baxa wax la yidhaahdo perfect ma jirto khaldaad waa imaan karaan insha allah waxaan rajaynaynaa wixii khalad oo muuqda inaan qabanno oo aan meeshii lagu sixi karo aan ku saxno hadduu ilaah yidhaahdo laakiin election walba iyo doorasho walbaba waxbaa ka soo noqda oo wax iska normal ah ama ha ahaato africa ama waddamada hore u maray ha ahaadaan safa waxay tidhi annagu inaan u darannahay saxaafadda arrintaas waa dacaydna laga faafiyey adeer marka xaqiiq saxa ma aha waxaan aaminsanahay dowladdan inay aad uga shaqaysay wada shaqaynta tooska ah iyo maxaan ku rahdaa wada shaqaynta suxufiyiinta waa dhab weeye dee dad waxaa jira suxufiyiin u eg laakiin aanan ahayn suxufi waxaa laga yaabaa inaysan aqoonteeda lahayn iyo khibraddeedii khaldaad badan oo aanan caadi ahayn ay iska galayaan ama waxaa laga yaabaa qaarba inay meelo kale ku xiran yihiin ay shabaab ka mid tahay oo ay shaqo ku jiraan oo ay ka shaqaynayaan sidii ay dhibaato iyo khalkhal u abuuri lahaayeen laakiin waxaan kuu sheegayaa inaan ku dadaalno wax walba oo awooddeenna ah soo dhawayntooda iyo wada shaqayntooda bahda saxaafadda taas daliil waxaa u ah inaan saxiixay baarlamaankuna uu ansixiyey sharciga ugu horreeyey oo saxaafadda oo siinaya xuquuq la taaban karo suxufiyiinta iyo idaacadaha guud ahaan arrinta uu fahad weydiiyey arrinta shaqaalaha waxay ku xihan tahay dakhliga dowladda soo gala iyo miisaaniyaddeeda ku xihanta haddii miisaaniyadda dowladdu ay kor u kacdo khasbiyan waa inaan kordhino shaqaalaha dowladda u shaqeeya annagoo fiirinayna khibradahooda iyo karateriya ay ku soo galayaan hadduu ilaah yidhaahdo su-aasha yaab kale oo aad weydiisay oo aan naga leexan karin jawaabteeda markay munaasabtaan kuu sheegi doonaa insha allah hadduu ilaah yidhaahdo aad waa mahadsantihiin annagoo gabagabadii joogna oo waktigii uu naga dhammaaday waxaan ka cudur daaranaynaa inaan su-aalaha intaa ku ekeynin idinkoo raalli ah waktiga aad iyo aad u dheeraaday insha allah madaxweynaha ayaan ku celin doonaa barnaamijkan waxaa idiin soo diyaariyey hay-adda raas ee cilmi baarista ah oo hay-ad soomaaliya oo ka dhisan waddanka gudihiisa waxaana marti maanta inoogu ahaa madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo naga aqbalay iyo idinkoo marti noo ah ugu dambeyntii waxaan ku wareejinayaa madaxweynaha inoo soo xiri doona iyo su-aasha ugu dambeysa oo ah dad badan waxa ay aaminsan yihiin intii uu xilka qabtay in aanan soo fadhiisan meel fagaaro oo nuucyadan oo kaleeto aan aada u badnayn ma laga yaabo inuu sii kordhiyo inuu dadka la hadlo fagaarooyinka noocan oo kalea soo fadhiisto iyo raas mar kale iyo ugu dambeyntii waxa uu ku dari lahaa doorashada qaabka ay u socoto dadka soomaalida wixii uu ku tegay waa mahadsan tahay cabdirasaaq aad baan runtiina kaga mahad celinayaa soo dhoweynta iyo raas machadka raas institute hawshaan aad qabateen oo wacyigelinta ama inaan isweydiino wixii xaaladaha jira guud ahaan dalka khaasatan arrimaha doorashooyinka su-aal yaan rabaa lagu celceliyey inaan
hal mar ku noqdo oo ah arrimaha tanaasulka. Tanaasulku waa wax wanaagsan, laakiin dhaqankeena Soomaaliga ma laha. waa compromise. waxa weeye qofku markuu tanaasulo waxaa loo akhriyaa in laga adkaaday. ma aha in laga adkaado qofka. hadduu walaalkiis u daayo isna waa loo deenayaa markiis hadduu macnaha markay timaado oo runtii tanaasulka aniga aan sameeyey hadda ay qayb ka tahay sida aniga aan sheegay inuusan shisheeyana soo dhexgelin. habeen dhaweydna waa yaro taabtay, haddana waxaan rabaa inaan ku celiyo. dhibaatooyinka dalkan soo maray intooda badan waxay ka timid tanaasul la'aan. maxaa yeelay laba hogaamiya wax isku qabsanaya intay ka heshiin kareen ama compromise ay ka geli kareen, nin walba ninka kale wuxuu rabaa inuu xariga ku gooyo. markaasna khasab waxaa imaanaysa in la soo dhex galo. Soomaali runtii way ka daashay in la soo dhex galo ama meelo looga yeero oo loo kala gar qaado. wax wanaagsan ma ah. muddo dheer ayaan kusoo jirnay. hadda waxaan rabnaa marka in aan ka bislaan arrintaas oo aan majuur ka noqonno oo annagu aan raadinan dhexdeenna inaan isxalinno oo aan xal helno. halkaasna koow waxaa ka ah tanaasul. culeysyada Soomaaliya haysta culeysyo sahlan ma aha. muddooyinkii la soo dhaafay 30 sano aan iraahdee waxyaabihii nagu dhacaayay ma ahayn wax annaga dhexdeena keliya ma ahayn. waxay ahayd wax nolola kacaayay oo qorshaysan, laakiin annagaa isu muuqanna dhexdeena isu muuqanna. hadda arrinta Somaliland iyo annaga waa dhexdeena waa ka xallin karnaa, waa wada fariisan karnaa. laakiin dee waa loo baahan yahay mararkaas kale in dibadda loo baxo oo dowlado kale ay galaan. Suudaan dhibaatada haysata hadda 2 usbuuc ka bacdi South Sudan yaa dhex galaysa oo heshiisiinaysa. waa wadan xoog leh oo stable ahaa, xasilooni siyaasadeed haystay muddo dheer, oo dagaalo badan soo maray, oo ka guulaystay cunaqabateyn badan oo lagu hayay muddo 25 sano ka badan. hadda dhexdooda waxaa ku jira South Sudan oo heshiisiinaysa. annaga marka ma doonayno in hawlaheena ay dad kale soo galaan annagoo xallisan karna. annagoo og Soomaaliya inay meeshan taallo, inaysan ahayn wax accident ah, wax kama ah inaysan ahayn, ay tahay wax qayb designed ah oo la design gareeyay oo xaqiiqo ah. waxaan idinka siinayaa tusaalooyin. dowlado waxaa jira annaga sida aan nahay ku faa'iida yaa jira. waxaa jira NGO-yo ku faa'iida annagu inaan dhibka ku jirno. dowladahaasi waxay nooga faa'iidaan dhan dhaqaale, waxay nooga faa'iidaan dhan siyaasad, waxay nooga faa'iidaan dhan security iyo ciidan iyo nooga faa'iidaan. dhanka dhaqaalaha Soomaaliya dhaqaalo badan ku baxa. dhaqaalahaas wuxuu soo maraa dowladahaas qaarkood iyo soo maraa. lacagahaas faraha badan intooda badan waxay ku hakadaan dowladahaas iyo ku hakadaan caasimadahooda. waxay u abuurtaa shaqo abuur. dadka u shaqeeya hay-adahaas hoteeladay degan yihiin, guryahay degan yihiin, makhaayadahay wax ka cunaan. dhaqaalahaas waddamadaas ay joogaan yay kabaan. haddii marka Soomaaliya arrinteeda ay xalismato, dhaqaalahaas will dry up, waa joogsanaysaa dhaqaalahaas. iyagu culays iyo ku noqonaysaa marka. shaqo la'aana ku dhacaysa. hoteeladooda waa xirmayaan, makhaayadahooda waa xirmayaan. marka ma rabaan annaga inaan waxayna xalisanno oo dalkan u dego ma rabaan. maxaa yeelay lacagahaas bilyanska ah oo dalalkaas ku socda oo bangiyadooda ku socda waa joogsanaysaa. waxaa intaas dheer ganacsatadeenna bacdamaa ay ka baqaayaan inay maal gashadaan mararka qaarkood xasiloonida siyaasadeed darteed, amni darrada darteed, waxaa laga yaabaa inay maal gashadaan dowladahaas, inay dalalkaas inay maal gashadaan oo iyo ganacsiyo kale ay ku galaan lacagahaas, ama bangiyadaas ee xawaaladaha ay dhigtaan lacagahaas oo ay dhiibaan fee ama canshuur ay dhiibaan. lacagahaas waa lacaga ka maqan Soomaaliya ka maqan. Soomaaliya hadday degto dhaqaalahaas ganacsatadeen ay ku maal gashanayaan dowladahaas ama dalalkaas waa joogsanaysaa. sidaas darteed dalalkaas waxay rabaan xaaladahan ku jirno inay ku jiraan. intaas waxaa dheer diaspora waa dhaqaale kale
waa yimaadaan dalka oo soomaalida socodkooda waa reer guuraa baan nahay socodkoodu waa badan yahay waddamadaas ku soo hakadaan hoteeladay degaan mararka qaarkood markay jeclaadaan waddamadaas xasiloonida ay haystaan iyo deganaanshaha guryahay ka gataan ama ganacsi ay ka galaan ama hadduusan lacag badan haysan hoteelada maalmaha uu joogo lacago badan uu ku bixiyaa lacagahaas waxaa laga yaabi karaa haddii ay halkan toos u keenaan dhaqaalo badan inuu dalka geli lahaa iyo maalgashi lacagahaas oo dhan waa joogsanayaan soomaaliya hadday xasilooni ka dhalato waa joogsanayaan waxaana ka hadlayaa 6 bilyan 7 bilyan oo dollar yaa laga yaabaa oo GDP-ga dalkaas kor u qaadaya oo annaga naga maqan waxaa intaas dheer arrimaha siyaasadda annagu haddaan aan kala maqannahay oo aan kala joogno oo aynan israbin waan la soo dhexgelaya oo dowladahaas waxay rabaan inay sii kala qaybiyaan oo weliba ay nagu faanaan ay yidhahdaan annagaa Soomaaliya ku dhex jirna oo waxaasaan u qabannaa meelahay ka qudbeenayaan shirarka waaweyn caalamka waa inay ku soo darsadaan hal baaragraaf ama hal sentence Soomaaliyan wax tarnay oo shirarkoodan casunnay ama waxbaan u qabannay marka dam waxay ugu jirtaa inaan kala qaybsannahay inaan xasiloon la'aan ay jirto inayna kala qaarkeenay la hadlayaan oo inayna kala qaybinayaan amnigu waa sidaasoo kale wey iyo security-ga way rabaan inaan tabar darannahay oo aan liidanno waa tabar darnaanaysaa ciidan ma haysanaysid dalka difaaca inta dalku uusan xasilooni la'aan jirto inta dhaqaalahaas kaa maqan yihiin waa canshuur kaa maqan ciidan ma dhisan kartid dalkaaga ma difaacan kartid marka sidaas darteed waa inaan tanaasulno waa inaan isu tanaasulno si dalkeenna xasiloonidii usoo noqoto si dhaqaalaheenna u kobco si siyaasaddeena u deganaato si ciidan aan u helno xuduudihiisa difaaca cir iyo dhul iyo meel walbaba difaaca sidaas darteed ogaada tanaasulku mar walba waa fiican yahay waa inaan isu tanaasulno waa inaan baranno inaan isu tanaasulno ogaada waxaan bilaabayna ma aha anigu waxay iga bilaabtay Kampala Accord waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad u mahadsan yahay madaxweynaha